كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii boqol iyo sagaashan iyo shanaad qeybtii afaraad ee su-aalaha iyo jawaabaha iyo su-aalihii aynu kaga jawaabaynay ama su-aasha aynu kaga jawaabaynay sidee ubadkaan uga dhigna ubad markaa toosan oo wanaagsan. ilaa shan qodob baynu soo qaadanay. maanta qodobka lixaad iyo ka toddobaad baynu eegi doonaa. siyaabaha ubadka looga dhigo inay wanaagsanaan waxaa ka mid a baa la yidhahdaa asuxbatu saalixa. macnaha qofku nolosha inta uu joogo wuxuu mar kasta u baahan yahay baa la yidhahdaa ama da kastuu ku jiroba macnaha cid uu la joogo ama cid uu raaco ama cid uu markaa waa maxay uu nolosha markaa waa maxay uu la wadaago ama waa maxay uu la socdo. marka waxyaabaha ubadku intay yaryaryihiin waxa la yidhahdaa marka ama qofka muslimka ahba noloshiisa waxa saamaynta ku yeesha ciddu markaa waa maxay uu la soconayo. markatu nabigu garan lahaa almaru calaa diini khaliilihi markaa falyandur axadukum man yukhaalil. marka nabigu wuxuu lahaa markaa iska eego qofku ciddu markaa maxay raacaya ama ciddu markaa waa maxay uu la saaxiibayo. saaxiibkaa wanaagsan ama ciddaa qofku uu raaco ama isagaa de qofka nolol fiican ama meel wanaagsan qofka waa maxay u horseeday ama isaga qofka waa maxay haadaanaya meel waa maxay ka tuuraya. marka xilligeen ama dhalinyarta xilligan ama waa maxay jilligan hadda soo kacayana aad bay qodobkaasi muhiim ugu tahay. haddii xataa qofkii waalidka ahaa uu qof fiican u dooro ayaa waxaa loo sii baahanya qofka haddana inuu eego marka waayo hadda qofka moila la sitaa wixii oo dhan waaqicii waqtiga dhan aad buu isu bedelay. marka sifadaasi waa sifo runtii markaa waa maxay aada muhiim u ah inay waalidku aada uga warhayaan. waxyaabaha ugu muhiimsan baaba la yidhahdaa waalidku waxa weeye mar kastaba inay ka warhayaan macnaha ubadkiisa wuxuu dhiganayo macnaha cidduu la dhiganayo ciddu waxa la maxay wax ka dhiganayo iyo meeshuu wax ka dhiganayo iyo cidda meesha waa maxay haysta ama cidda iskale wax macnaha iyagana waa maxay iyagana inuu aqoontooda ama waxay dadka u dhigayaan meesha sababta ay u fureen inuu iyadana waa maxay u ogaado ubadkooda meeshay waa maxay aadayaan meeshay wax ka cunayaan waqtigay seexanayaan. macnaha waxyaabahaasoo dhan waa ka warhaynta ubadka. mar kastoo waalidku waa waxyaabaha ugu muhiimsan barbaarinta ubadkana ayay ka mid tahay oo dee mar kastuu arko ilmihii in laga warhayo iyo mar kastuu arko inaan laga warhayn waa laba shay oo kala duwan. markuu arko adigoo saaxiibkii yaqaan wuxuu dhiganayay yaqaan wuxuu cunayay yaqaan meeshuu seexanaya garanaya cid wax ka dhiganaya garanaya cidduu aadaya xilligu soo noqonaya garanaya isna maxaa ku kulub mataqaana markaa isna maxay sameyn usalaalinayaa marka isla markaa maxay taxadir buu gelayaa marka isleeyahay war waalidkii hooyay aaba waa maxay meesha tegaysa waxay dhow bay wada garanayaan. taa cagsigeeda waalid aan ka warhaynin ka warran hadda madaarista markaa artoodaga garanaya waalid baa macallin baa laga yaaba inuu ilmaha 5 sano qur-aanka u dhigayo hooyadii aabin waxa laga yaaba maxay inaan waa maxay indhahaba saarin baa laga yaaba ama marmar telefoonka waa hadla ama marmar hooyada u timaada laga yaaba. inaga inta 90% inta ugu badan macallimiinta dadka ubadka barbaarinaya wuxuu dhigaya aabayaashu noo yaqaanaan inta yara yaqaan aad buu intay waalidka taqaanaana hooyo markaa u timaada hooyada madrasada timaada ama iskuulka timaada ay ubadkooda soo baxaan hadda nolosha caadiga markaan ugu fiirsano waa sidaa. ilmo kastoo waalidkiisu ay ka warhayaan ama madrasada ama iskuulka meesha ka dhiganayo ay ka warhayaan isku xiran yihiin waa ilmaha ugu sarreeya meesha wey. saas wey. qodobka ku xiga waxaa toddobaad waxa weeye iyadana eegina alqiraa'atu alxurra. waxyaabaha ubadka waxaa la yidhahdaa iyagana wanaajiya waxaa ka mid ah marka dee laga yimaado saaxiibnimada wanaagsan qur-aanka waxyaaba soo sheegna oo dhan waxaa ka mid ah baa la yidhahdaa in lagu tababaro macnaha inay wax akhriyaan qiraa'a markaa inay sameeyaan. qiraa'ada waxaa la yidhahdaa qofku waa wuxuu waxa la yidhahdaa marka waa maxay dadka kale uu kula hadlayo dadka kale waa maxay marka waa maxay wuxuu ugu sheegi karo ama uu kula hadli karo siduu dadka ula hadlo oo si fiican hadalka wanaagsan oo hadalka ugu tooso ugu fiicnaado waa inuu wax soo akhriya baa la yidhahdaa marka hadda waxyaaba uu akrinaya ayaa aada u badano waxaynu eegi doonaa mar kastaba inta waxyaaba mataqaana ilmaha aadka muhiimka ugu adduunyadiisa aakhiradiisaba oo kow waxaa ka mid ah baa la yidhahdaa ilmaha horta in la baro macnaha qur-aanka macnaha qur-aanka inuu barto si hadhow markaa macno qiso kusoo aroortay ama dhacdo qur-aan ka sheekaynayo ama qur-aanku shirki dadka uga digay tawxiid dadka amrayo
وغشاكين كرم هل آيات مكو برتو معنى مكو برتو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مكو معنى هذا يقان يمركو شكد المراد وكلا دوانتها هذا من آيات كلي معنى الشيء تترى أبريت آيات أي معنى وساقو معنى بسامين ويا عاد بعشي بتاع التفريد الحوية ولا يرهلا إن لو ولد ده مركا إيدنا معناها ومحي سيرة دي مركا نبيك ومحي تاريخي نبيك ومحي أحاديث نبي ومحي كسر على القصيدة ومحي كسر على جابر المركا إيدنا مهم وي كسر حال وحلا إيدنا قصوين كمركا كلت الدوان والد كنت جاري كلام ما أولي كلام مركا نافع واحتر كله إنك على ولد ده لوي قدرك أفراد مرك أنت مرك لصوص صنعي بحلقة meelaha kale marka awalka maxay akhrinayaan waxyaabo kale iska sheego laakiin waxaadana quraanka iyo sunnada nabiga inta marka waxyaabaha ku dugan la fahansiiyo qisooyin quraanka looga sheekay wixii kale markaas imanaya kadib marka waxaad sameynaysaa baa leeyahay kutub naafica waxyaabaha awalka marka waa maxay anfacaya in dadka marka marabiinta aan barbaarinaya inay awalka marka waa maxay ay u akhriyaan marka maxay u dhigaan ama awalka marka waxay iyagu marka u sheegaan marka wali wax la yiraahdaa majaalka ama meesh أوضي أشعليه سلام هدي قف كان سلام أو حديث شعليه هتو قف كان رام حفقة شعليه هتو قف كان سلام سيرة شعليه مش أو شعليه بالله ضارة مركب هدي مركبين عكس صوف عروقة حيوان كان ساينس كانوا قطنا شو حرّي سوء آخرية مركب ساينس بالربع تكنولوجيا والربع محك آخرية ومحي محرّة سوء محك آخرية تاسع إيه مركب حساب ورد وحرّة تاسيد مكان حتاس مكان هل بوك بدو ديبي سالحان هل البوك سو آخر مركب أما هذا لما هل بوك قيبنا ساعة ترم بيت أو شن بيت هذا سو آخرية هذا سو شيء دي مركب بقول ده حساس أبو سمين كرا عندنا سمين كرا مركب قال كوطن بيحوي جدا مهم قراءة معناها تاريخ ذا مركب وأيضا نحن حوالي أول كوين لوش قبل الإيرادان أي أوجادان ما يجري في العالم معناها عالم كان كوها الرئيس ما كان يحس عليه يوحي صوم مرة ها أنا ودمدي أو كله معناها محي تاريخه إنه محي كرديجان كرو هذا حلقة هذا اللي تشوفه تأخذ هذا اللي تشوفه ودمد الإسلام معناها شدي معناها هالكي مرة هالكي صوم مرة معناها ودمدن قالوا هالكي صوم مرة هذا هالكي تشوفه أنا تاريخها صار إنه أوفر فيو وما جود ومحي إنه كهايستوب شو كان عادي حاب قارين بك سو صفة عنه كله فهن سنة الإسلام هالكي تشوفه هالكي صوم وعصر سو قرنا يأمرك قوة كودن يحوي بيدن لي هذا دي إنا مركا أيضاً غافل نغا نقون حياة بوزيتيفكا عم وناغا faraha badan internetka uu leeyahay marka waxaa laga yaabaa waxaad maanta noo sheekeynaysay inaad internetka youtube-ka aad furtid hal video oo yar oo 5 daqiiqa inaad markaa waxay ku fahmo oo ka daawado marka isaga dhinaca internetka casharada kasoo dhignay xagas lagu noqon doonta insha Allah ta'ala sidaa oo internetka waxa looga faa'iideeyo marka isaga markaa waa maxay waa isticmaalaysaa marka adsalaha dib buu gixi wiyad diida meer waayo kale haddii ay baarkiisa haysto ama laptopkiisa oo haysto ama mobilkiisa oo haysto waxaad u sheegaysaa markaa maxay meel waa maxay nafcila marka hada website gal baad ka gal hada buug kala soo bax soo download garayso soo daabac soo akhri baad marka hasaad u sheegaysaa marka ama waxa leedahay waa youtube gal baad leedahay magacaynkaas ku qor fiidiyoga nooca ka daawo hada isoo sheeg marka waxa xidhan marka maxay wax ka sheekeynaya marka hasaad u sheegaysaa ama noqoto marka macna google-ka caadiga xogta ka soo heli karaad ugu dirtid ama youtube-ka uga dir meel had meesha xiiseynayso aad jecel yahay waxyaaba maanta nafciga ka akhriyo uga dir marka sababta qodobina maxay labada qodob maanta ku jiraan si wada insha Allah ta'ala والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم